maanta waxaan joognaa duleedka magaalada Bolton oo ka tirsan Greater Manchester. waxaan soo booqanay Mootop. Mootop waa xarun markaas lagu iibiyo caanaha freshka ah. magaaladan Bolton waxa ay ka mid tahay magaalooyinka oo markaas degan yihiin Soomaalida. ومركا بوقنا مقالة بولتون وحان كلا كلنا محمد علي حسين وكمد dadka mudada dheer degnay magaalada Bolton. maxamed nooga waran Mootop maxay ka dhigan tahay? halkaani waa meel oo looda lagu ilaaliyo. ninka iskale ama company-ga iskale waxay sameeyeen caano diyaara oo meesha lagu soo diyaariyay milk shake adiga iyo self service oo cidina ka gadeen oo adigu iska gadaysaa meesha yaalla. waxa weeye horumar weey. waxaana horumarkaas keenay nabadda ay dalka aan ku nool yihiin. aan rabaa u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed dalkeena waxa ka dhiman waa nabad. in lagu dadaalo sidii nabad loo heli lahaa. qof walba waxa ku filan waxa ka yar laba guri ama laba boos oo Soomaaliya ku yaala inuu nabad noloshiisa dhan ka samaysto. sida halkaan uga jeedid loobaad joogta qof la jooga ma leh. waa garta caanaad iibsanaysaa qofka iibinaya mala computer baa ka iibinaya. marka bal ka waran nabadgelyadaas iyo caanahaas. waa garta marka maxamed marka Soomaalida oo ku nool Greater Manchester waxa laga yaabaa in badan inayna halkaan ay ka warqabin. waxaan hadda soo cabnay milk shake oo fresh ah oo markaas hadda la soo lisay oo caanihii markaas yacni oo lo'dii ay meesha taagan tahay. horena waa u gudbi doonaa. marka maxaa ugu baaqi lahayd dadka Soomaalida oo deegaankan degan gaar ahaan kuwa familada carruurta haysta? waxaan ugu baaqi lahaa inay ogaadaan waxyaabaha ka jira ereyada ay ku nool yihiin. sida meeshaan oo kale anigu maana ogeyn adiga ay sheegtay. marka waxyaabo badan waxaa jirta oo facility oo kana raqiisan magaaladii lagana heli karo meelihii. laakiin waxa u baahan tahay inaad baartid oo aad tagtid faamamka meelaha maxay qofkan iibiya meelo kale xataa waxa jira malabka sidoo kale lagu beero. marka waa in sida Mootop oo kale la imaado caanaha raqiiska laga gato. waa garta Mr. Maxamed hore ayaan u soconaynaa. waxaan practice gareynaynaa caanihii oo markaas fresh ah oo aad iibsi kartid. sida u jeedaan halkaas waa meesha caanaha lagu iibinayay. marka arrintan marka maxay kaga dhigan tahay waddanka Soomaaliya oo runtii ah waddan markaas sida la sheego khayraad badan leh, dhul barwaaqo leh, dhulkan hadda aan joogno kale leh. marka maxay uga dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed? dhulkan ayaa ka barwaaqo badan meeshaan kana weyn kana caafimaad badan dhinac walba uga fiican. laakiin ilaahay hana fahansiiyo inaanu fahanno adduunyada meesha u socota iyo sida looga faa'iideysan karo. waa gartay marka haddii oo si view aan idin tuso halkan waxa weeye meeshii caanaha laga iibinayay. wax yar ka bacdi waxaan arkaynaa lo'dii oo iyadana markaas halkaas ku xareysan sida aad u jeedaan. waxa ay daaqaysaa si oo kalsooni leh. cooskii iyo biyihii ayay cabaysaa. marka ninka shirkaddan iska leh ma joogo halkan, cidna ma joogto, cid wax ka iibinaysa ma lahan. adiga ayaa markaas iibsanaya kaligaa. hadda hore ayaan u gelaynaa. waxaa u baahan tahay marka koowaad aad timaadid inaad raacdid talooyinkan halkan ku qoran oo sidii aad u iibsan lahayd ah. marka maxamed ayaa na tusi doono sida loo iibsanayo caanaha. marka waxaan bilaabaynaa markaas in caanihii la iibiyo. waxaan u malaynayaa marka hore inaad nambarka u baahan tahay halkan ka dooranaysid caanihii oo fresh ah. waa kana talooyinka marka cabirka aad rabtidna halkan ayaad ka dooranaysaa marba suitable ku ah. maxamed marka hadda wuxuu bixinayaa caanihii lacagtoodii. waa kaasa lacagta ayuu bixiyey. marka hadda halkan waxaa ka soo bixi doona caanihii oo markaas fresh ah oo hadda waa caano diyaarsan oo isla markaas hadda la soo lisay. dhankan kale waxa weeye waa dhanka milk shake. dad ayaa hadda iibsanaya meesha magaceeda waxaa la yidhahdaa Mootop Dairy.
fresh and local. marka halkaa ha laga faa'iidaysto waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan Soomaalida ku nool deegaanka Bolton iyo guud ahaan gobolka Greater Manchester in halkaan ay ka heli karaan caano markaas fresh ah. Waa mahadsantihiin.